haddii aan u guda galno isbuuc ciyaareedka 31 oo aan guda galayno waxaa la ciyaari doonaa kulamo muhiim ah oo jimcaha ayaa kulanka ugu horeeya la ciyaari doonaa waxaana wada ciyaari doonaa kooxaha Fulham iyo Wolves, Man City iyo Leeds, Liverpool iyo Aston Villa, Crystal Palace iyo Chelsea, Burnley iyo Newcastle, West Ham iyo Leicester, Tottenham iyo Manchester United, Sheffield United iyo Arsenal, West Brom iyo Southampton iyo kulanka ugu dambeeya ee maalinta Isniinta la ciyaari doono oo ah Brighton iyo Everton. haddii aan idin xasuusiyo toddobaadkan waxa uu ku celiskiisa yahay toddobaadkii afraad ama isbuuc ciyaareedkii afraad xilli ciyaareedka qaybtiisa hore ay dhaceen natiijooyinkii waaweynaa ee la yaabka lahaa sida in kooxda Manchester United 6-1 looga badiyo, sida in kooxda Liverpool 7-2 looga badiyo. marka haddii aan fiirino marka kulamada sida gaarka ah loo xusi karo oo aan isdhihi karno waxaa ka imaan karo dhibco. kulanka ugu weyn toddobaadkan waa kulanka iskaga hor imaanayaan kooxaha Tottenham iyo Manchester United. kulankaasi qaybtiisa hore xilli ciyaareedka waxa uu kusoo dhamaaday 6-1 oo ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Kane iyo Son ayaa gool ka dhaliyay. weliba Old Trafford ayaa looga badiyay kooxda Manchester United. marka toddobaadkan waxaa suurtagal ah in meeshaasi laisku galo oo maadaama kooxda Manchester United ay kaalinta labaad ku jirto, Tottenhamna ay kaalmaha shanta hore ay ku jirto. marka meeshaasi waxaa la isdhihi karaa dhibco muhiim ah ka iman kara. ciyaaryahanka qaab ciyaareedkiisu uu wanaagsan yahay ee sidoo kale hogaaminaya gool dhalinta Harry Kane oo kulankii hore 2 ka dhaliyay waa muhiim ayuu yahay kulankan. dhinaca Manchester United-na Fernandes iyo ciyaaryahanno sida Mason Greenwood oo kale oo maadaama Martial uu ka maqan yahay meesha iyo Cavani inay meeshaas fursado badan ka helaan ayaa laga yaabaa. dhinaca daafac markaan fiirino kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan aad u fiicnaayeen qaybihii dambe weliba aad ay fiicnaayeen sida ciyaaryahan Shaw oo kale. dhinacaas ayaa la iska fiirin karaa. marka haddii aad u baahan tahay sidoo kale kooxda Tottenham waxay ciyaari doontaa isbuuc ciyaareedka 32 laba kulan ay ciyaari doontaa. marka sidoo kale waa inaad ayadana saa u fiirisaa oo ciyaaryahanada qaar haddii aad maanta soo iibsato kadibna ay ku anfici karaan. waxaa xusid mudan sidoo kale in koox kasta aadan 3 ka badan aadan keensan karin. sidaa darteed aad uga fikir. kulanka kale ee muhiimka ah asna waxaa waaye kulanka ay iskaga hor imaanayaan kooxaha Leicester City iyo West Ham. labadaas waxay ku kala jiraan kooxda West Ham horta qaab ciyaareedkeeda aad u wanaagsan yahay oo toddobaadkii la soo dhaafay waxay lambarka afraad ay ku dhameysatay. waa markii ugu horeysay muddo kadib in kaalinta afraad ay soo gasho kooxda West Ham. Leicesterna kaalin saddexaad ay ku jirtaa. kulankaasi waa kulan aad iyo aad looga warsugayo. kooxda Leicester waxa u soo laabtay James Maddison oo aan ognahay sida waxa uu haystay 36 dhibcood intii uu ciyaarayay. marka soo laabashada Maddison waxay wax ka bedeli kartaa khadka dhexe ee kooxda Leicester oo ciyaaryahan Iheanacho iyo Vardy iyo weerarkeedana aad u kule inkastoo uu Harvey Barnes uu ka maqan yahay. laakiin meeshaasna dhibcaha uga imaan karo dhinacyada. haddii aan fiirino dhinaca West Ham, Antonio ayaa dhaawac ka galay. West Ham kulankii ay hore ula ciyaartay Leicester 3-0 ay kaga soo badisay oo kulan ka dhacay garoonka Leicester. ciyaaryahan Bowen ayaa ka mid ah ciyaaryahanada ayagana saameynta badan yeelanayay toddobaadkii la soo dhaafayna gool ka mid ah goolashii ay ku badin dhaliyay. Fornals ayaa ka mid ah. dhinacaas ninka weliba toddobaadkan iyo weliba qaybta sanadka 2021 saameyntiisa ay aad ka cajiibka u tahay waa Jesse Lingard. waa nin lagu xisaabtami karo haddii aad hore u soo iibsanin oo aadan ka mid ahayn maamulayaasha soo iibsaday toddobaadkii la soo dhaafay. waa mar kale inaad ka fikirtaa inaad soo iibsato. haddii aan kulanka kale aan fiirino kulanka toddobaadkan asna goolasha ka imaan karaan waa kulanka ay iska hor imaanayaan kooxaha Liverpool iyo Aston Villa. kulankaasi qaybtiisa hore waxa uu ahaa wuxuu ku soo dhamaaday 7-2 oo Liverpool ayaa gool darro weyn la gaarsiiyay iyadoo markaas ay bilowgii horyaalka ay ahayd oo la isma lahayn koox ay 4-7 gaarsiin doonto. wax cajiib ay ahayd. Watkins ayaa wuxuu ka dhaliyay 3, Grealish ayaa 2 ka dhaliyay. Grealish waa weli ma soo laaban oo weli lama hubo inuu soo laabanayo. toddobaadkii hore waa la rajeynay inuu soo laabto laakiin mar dambe ayaa waxaa la xaqiijiyay inuusan tababar ka qayb geli karin maadaama ay dhaawac yar uu soo gaaray. ciyaarahan Watkins waa mid ka mid ah ragga ugu
inkastoo maqnaanshaha Grealish uu saameeyay haddana waa nin lagu xisaabtami karo. dhinaca Liverpool markaan fiirino toddobaadkii hore waxaan ka hadalnay Jota iyo saameyntiisa wayna rumowday oo 2 gool ayuu dhaliyay oo kooxda Arsenal ay 3 uga badiyay 2 gool ka mid ayuu dhaliyay. Salah sidoo kale gool ayuu dhaliyay. dhinacaasna waa maadaama Liverpool oo guuldarro ay ka soo gaartay dhinaca Champions League waxa xusid mudan sidoo kale in Salah uu gool ka mid halka gool ay dhaliyeen ee Burnley ku soo dhaliyeen inuu asagu u dhaliyay. marka Salahna waa nin dhibco inuu keeni kara sidoo kale Jota. dhinaca daafacyada kooxda Aston Villa waa ayadana inkastoo aad kala kulmi kartid xogaa culays la kulmi kartid haddana waa mar walba waa muhiim. waxaan ka mid ahay dadka Martinez muddo badan haystay. kulanka kale waa Manchester City iyo Leeds. kulankaas Manchester City iyo Leeds waxaa iskaga hor imaanaya 2 tababare oo aad iyo aad macallin u ah. waa tababar Bielsa iyo ninka kale Pep Guardiola. kulankii hore 1-1 ayuu kusoo dhamaaday. kulankaana waxaa la sugayaa bandhig ay isku arki doonaan 2 tababare oo waayada tababarnimo amaba saaxadda footballka saameyn weyn ku leh. ciyaarahan Jack Harrison ayaanan ka soo muuqan doonin kulankan maadaama kooxda Man City ay iska leedahay Bamford iyo Rafinha oo ah dadka ugu badan ee la haysto in ay soo laaban inay ku soo bilowdanayaan suuragal. kulanka kale waa Sheffield United iyo Arsenal oo kulan hore laga soo badiyay. qaab ciyaareedkeeduna aad muddo seasonkeedu inuu yahay mid ka dhax kadib oo kala marna kor u kacayo marna hoos u kacayo. Sheffield United oo ah kooxda ugu hooseysa in xataa ay meeshaas guuldarro kala kulantay ayaa laga yaabaa. laakiin ciyaaryahannadeeda sida Lacazette iyo Saka oo soo laabanayo ayaa la isdhihi karaa inay meeshaasi wax ka keenaan maadaama ay kulankii hore laga soo badiyay kulankan ay qasab tahay inay dhibco keenaan haddii ay rajadooda kaalmaha hore inay sii nooleen haddii u baahan yihiin. haddii aan fiirino marka ciyaaryahanada la isdhihi karo toddobaadkan waxaa ka imaan karo ama farqi goolal ay keeni karaan waxa waa ninka ugu horeeya waa Sergio Aguero labadii kulan hadda ugu dambeysay waa lagu bilaabay maadaama uu la xaqiijiyay in Sergio Aguero uu kooxda ka tagi doono. kooxda Manchester City waxay isku dayaysaa inay sagootin cajiib ay u samayso. sidaa darteed kulamo muhiim ah ayuu kusoo bilaaban karaa. kulankan ay Leeds ay ka hor imaanayaanna waxaa suurtagal ah inuu dhibco meeshaas keen. qiimihiisu waa 10.3 waana heshiisyadiisana dadka haysta aad ay u yaryihiin. waa nin la isdhihi karo wax waa ka iman karo. ninka kale waa Danny Ings kooxda Southampton ayuu ciyaaraa. wuxuu yeelan doonaa isbuuc ciyaareedka 2 kulan ayuu ciyaari doonaa maadaama kooxda Tottenham uu ka hor imaan doono. haddii aad hadda soo iibsato waxaa suuragal ah in toddobaadkaas kalena uu ku caawiyo. James Maddison oo ka soo hadlay oo qiimihiisu uu yahay 7.1 ayaa haysashadiisu ay yar tahay. sidaa darteed waxaa suuragal ah inaad dhibco ka hesho asna haddii aad toddobaadkan aad soo iibsato. wuxuu ka hor imaanaya kooxda Manchester City oo aan ognahay qaab ciyaareedkeeda balse wuxuu ka hor imaanaya aan idhaahday kooxda West Ham waa ciyaar aad u kulul balse laga filan karo dhibco badan. haddii aan dhinaca kabtanka aan fiirino toddobaadkan waxaa uu cadcad oo kabtan aan ugu horeeya aan saarayaa dhinaca Mohamed Salah waxa uu hogaaminaya kooxda Liverpool oo gool dhalintana isaga ayaa kaalinta labaad ku jira. sidaa darteed fursadaha ugu badan uu heli karaa. sidoo kale kooxda Liverpool waxay leedahay kulamo isku xiga oo aad u fiican oo looga xisaabtami karo dhibco. sidaa darteed haddii inaad ciyaarana inaad soo iibsato aad ka fikraysid Mohamed Salah oo kale Gareth Bale oo aad iskaga iibinaya toddobaadkii la soo dhaafay haddii uu kugu jiro si aadan iibinin inaad ku bedelan karto haddii aad dhibciisa haysto. qiimihiisa waa 12.4 haddii aad soo iibsan karto waaye. sidoo kale ciyaaraanka kale ee qaab ciyaareedkiisu aad u wanaagsan yahay waa Harry Kane mar walba wuxuu ka mid yahay xulashada ama doorashada ugu horeysa ee kabtanka loo qaadan karo toddobaadkan. inkastoo uu ka hor imaanayo kooxda Manchester United oo laga yaabo in xaalad adag ay kala kulanto haddana waa xulashada ugu horeysa. isla kulankaas ay labada koox ee waaweyn iska hor imaanayaan waxaa meeshaas asna kooxda dhinaca Manchester United waa Fernandes oo asna kabtan la saaran karo. Fernandes dhinaca goolka iyo caawinta marka la isku dardaro waa ninka ugu badan. iyo ninka kale ugu dambeeya ee toddobaadkan aan dhihi karo dhibco ayaa ka iman karo kabtanna waa lagu aamini karaa waa Kevin De Bruyne qaab ciyaareedkiisu wuu wanaagsan yahay. soo laabashadiisii kadib kulankii Champions League ay ciyaareen gool ayuu dhaliyay. sidaa darteed waxaa suuragal ah in toddobaadkanna uu
dhibco meeshaas ka soo xareeya. intaas ayaan kusoo koobayaa asxaabay tababarayaasha waxaan u rajeynayaa guul haddii aad weli kusoo biirin bogga FBL Somali waxaan ku xasuusinayaa in aad ka fikirtid inaad subscribe aad saartid sidoo kale dhinacyada Facebooka Twitterka iyo Instagramkana aad noogu soo biirtid sidoo kale waxaad nagala socotaan telefishinka Stan Sports aad iyo u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh